السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سؤال هذا شانك مفركس ومر كله فيديو كله فيديو كمان توحى كسب سنيه قاب كوفضت الله قدر كره فن بيب إن بدن وحنا كله فن نكست أصحاب بدن واحدين سواء هذا الفن بيب يفتيمه مركو حتى كو أنا كهر مرنا فن بيب سنة كهر مرنا مرك إن شاء الله هدي أتهم كوات أصاب وقت السنة كأما كو ويلي صوب وقت وحنا كعصنا أنا لايك شارتي سبسكرايب معزونديد هدي أنا ذكرنا الجوجي هذي لوين إن لايك كومنت جالس حتى لو ذاك تذكر جعلنا هرمك سما يعني مرك إن مرة وحنا أيضا دنك إن مرة وحنا أيضا دنك إياه الشاشة تدي له هدمة شاشة فن بيبقى أيضا تدي له هدمة هلك واحد كم مقطع شاشة أو فن نكست فن بيبقى عندها فن بيبقى دام أن شغلنا مرك وحنا كثيرين دونا وحيالها ومهم سن أو أصلنا هاي أمي مهم تهاي marka insha Allah website markaad soo geshid sidaad hadhow magacaadina kusoo qarban raa username iyo password markaad samaystid kadib waxaad samayn doontaa halkan aan leedahay pie challenge-ga aad soo qaadan lahayd almost waa soo go'aansatay midku yahay kan 10,000 midka hal step iyo waxay haystaan hal step waxay haystaan two step marka waxaan kugu talinayaa inaad qaadatid two step-ka kan ugu wanaagsan two step waaye one step waa qaadan kartaa laakiin xoogaa gacanta hadday kuu fadhiso qaado laakiin haddii kale waxaa waye lacag badan ayaa siin doontaa one step markaa fiirin tusaale ahaan akoonka u yar waxaa 5,000 waxaa la gadaa $9 waxaan laga rabaa inaad ku dartid kulley waa fiirin doona waxyaalaha laga rabo iyo meesha u socono dashboard markaa tagnaa arki doona halkan waxaan ku dhufan doonaa fun bip aan ku dhufano fun bip markaan ku dhufano kadib waxaan leenahay whatsappka aan ku dhufan doonaa fun bip aan ku dhufan doonaa kadib waxaan u jeednaa zoonkaan joognaa zoonka markaad joogtid adiga xore inaad tirid account gadatid hadii kale marka waxaan leenahay waxaan ku dhufan doonaa buy challenge halka ku taala ayaan ku dhufan doonaa buy challenge markaan ku dhufano kadib challenge-yada hore waxaan usoo fiirinay challenge-yada si kala yihiin iyo midka wanaagsan oo soo fiirsanay waxaan go'aankan waxaa waaye two step inaan qaadano two step waxaa jiro mid 10% inaad ku dartid iyo midna waxaa ku dari doontaa 8% marka meesha qiyaamada ku jirto waxaa waaye hadda markaa gadanaysid waxaa waaye $40 ay kaa dhimi doonaan laakiin hadhow markaa gadatid waxaa laga rabaa 2% extra inaad ku dartid meesha halkaa ku dari lahayd keliya 8% aad ku dari lahayd waxaa ku dari doontaa 2% extra marka 2%gaas zaid kuu yahay aduu zaid kuu yahay marka waxaa fiican 8% qaado dhib ma lahan kadib account size-ka adaa ka doorana halkan waa 5,000 10,000 25,000 50,000 iyo 100,000 marka waxaan qaadan doonaa account size-ka 5,000 ما 10,000 aan qaadan doonaa ka 10,000 aan baraweyn doonaa ka 10,000 markaan baraweynayno halkan waxaan ku dhufan doonaa lacagtii aan u jeednaa $66 barbardhig labada account labada company oo ka sameeyay videoga waxa yaala kulay qaybtan oo playlist-ga waxa ku jira fun bip fun next qaybtiisa ku jira kadib soo dooro midkii raqiisan kulay aad arki doona laakiin maanta go'aankeen waxa waaye ka raqiisan maahane midkaan si loo furan lahaa aan rabaa inaan ka hadlo marka halkan markaan ku dhufto waxaan ku dhufan doonaa continue halka agree markaan soo dhax continue ku dhufan doonaa kadib halkaan uu keeni doonaa halka markii keeno waxaan ku dhufan doonaa qaybtan ay ku qoran tahay crypto aan dooran doonaa crypto markaan doorto kadib waxay siin doonaa laba option-ka siin doonaa waxa waaye $66 laga rabaa inaan bixiyo ma waxa ku bixin doonaa bitcoin iyo ethereum iyo maxaa la dhahay lacagaha kale marka waxaan dooran doonaa USDT maadaama aan isticmaalo USDT aan dooran doonaa USDT markaad dooratid laba option aad haysto tooran inaad isticmaashid ama ethereum inaad isticmaashid ani waxaan dooranaa ethereum-ka waxoogaa waa 2 minute 0.2 minute kan 30 second waay laakiin kanaan dooran doonaa ethereum ARC20 aan dooran doonaa ethereum markaan doorto Binance-ga la soo bixi doonaa Binance-ga telefonkeyga aan rabo inaan ka gato toosna halkaan uga gato maadaama oo aan rabo akoonka inaan barawey Binance-ga aan ku dhufan doonaa telefonka Binance markaan ku dhufto shaashada geeskaan soo saari doonaa Binance markaan ku dhufto kadib waxaan samayn doonaa QR code aan sawir ka qaadi doonaa haddii kale halkaan copy aan ku samayn karaa copy markaan ka sameeyo copy-ga waxaan isku diri doonaa telefonkeyga WhatsApp-ka usoo dirsan doonaa hadhow Binance-ga halkaas aan geli doonaa marka akoonka markii aan lacagtii confirm aan ku sameeyo Binance-ga lacagta ay qaataan halkaan waa arki doonaa lacagta ay noqotay sidaas u gadan kartaa muhiimadu waxa waaye akoonka inaad gadatid kadib waxaan heli doonaa waxaan sugi doonaa ilaa oo lacagtaas iska bedelayso website iska bedeli doono website markuu isbedelo
okay website markuu isbedelo oo account lacagta ay goostaan lacagta ay noo soo dhacdo Binance aan ka aragn lacagta laga goostay kadib waxaa dhici doona dashboardkan aan toos u tagi doona markaas dashboard marka tagno waxaan arki doonaa account-kii in loo furay iyo in kale intaas kulli waa la iska fahmay qofkii raba inuu rabo discount inuu helo inuu rabo qofkii rabo discount inuu helo halkan waxay hayaan discount way hayaan marka waxaan ku dhufan ka cancel discount halkan kore ay ku qoran tahay FundBip waxay bixiyaan 20% ani wax affiliate ma haye number ku siin doona hoostan qofkii rabo toos halkaas ka iibso account halkaas ka gado waxa ku dhuftaa kaliya code-ka waxa gelin doonta halkan marka payment ku dhufano halkan payment ku dhufano code-ka halkan gelin doonta ani maadaama account-kaan gatay ma siin doona laakiin code-ka markaan geliyo code-ku waa hello salahan hello markaan geliyo aan hadda markaan probay fiiri apply markaan dhaho waxa laga yaabaa inuu iga diido ani miga ogolaana maadaama account-ka waa haystaa laakiin adig maadaama ku aad tahay wuu ku shaqeyn doonaa kadib 20% ay ka jiri doonaan okay it's fine wuu ku fiican doonaa lacag fiican heli doonta lacag ku hari doonta kadib meesha u socda meesha u muhiimsan halkan waa meesha rabo inaan wax ka tuso balasta maahan qaybtan kale boorsada inaan ku dhuftaan rabaa qaybtan boorsada inaan ku dhufto qaybtan boorsada markaan ku dhufto marka waxaan arki doonaa account-madii arki doonaa account-mada aan haysto dhan halkan ay yaalaan qaybtan plus qaybtan marka boorsada markaan ku dhufatid qaybta boorsada markaan ku dhufatid kadib waxaan heli doonaa account-mada heli doonaa account-kaan ka hadlaya 10 kun waa kana markaan ku dhufto waxyaalaha kale oo account uu leeyahay rabaa inaad tuso account markaan ku dhuftid halkan waxaan arki kartaa account numberkii account halkan ku yaala account-ka waa kana account-ka ku dhufan doona account markaan ku dhufan halkan waxa ku qoran account numberkii ku qoran tusaalahan halkan waxa ku jiro qaybta markaan ku dhuftid waxa arki kartaa detailska MT5-ka iyo ku gali lahayd halkan ay ku jirtaa waqtiga uu dhamaanay 16 ahayd waqti hadda aan gaday maanta waxba end waxa ku yaalo ma ku qorna markii adig baasisid way tirada aan qaatay kulli halkan ku yaalaan inta tirada aan qaatay lacagta aan ka qaatay fiir 3 tirada 4 tirada aan qaatay 3 tirada aan qaatay 16 kismaan tirada qaatay 17 tirada sabti axad wax tirada ma qaadan isniin tirada ma qaadan shalay 22 tirada qaatay maanta wali wax tirada ma qaadan marka tirada halkan ka arki kartaa marka waxa laga yaabaa FundBip hadii loo fiiriyo FundNext waa kaga fiican yahay qaabka website-ka uu dhisan yahay qaabka wax u arkaysid waxyaalaha oo ay clear u yihiin in badan waa kaga wanaagsan yahay dhihi karaa hadii aan fiirino FundNext markaan fiirino markaan isku barbardhig aan ku sameeyno marka halkan hoose waxa ku yaal qaybtan waxa ku yaalo inta laga rabay oo loss laga rabo hadda loss laga rabo halkaas waay maanta maximum loss maanta meeqa haysta 580 haysta okay meeqa iga dhiman inaan ku daro account-kan tusaalahan account-ka inaan ku daro waxa laga rabaa 8% aan rabo inaan sameeyo haddana meeqa haysta marka halkan koranka arki kartaa qaybtan kore waxaan haystaa 3% haysta hadda marka waxa iga dhiman wax ka yar ay dhiman marka tanna waxa waaye meesha marka uu darneed account lacagta oo minus ku gaaray intaas ahayd 9,993 uu mar gaaray meesha uu hooseysay waay marka haddii aan ku darno 8% waxay noqon doonaa 10,800 marka 10,800 marka aan dhameeyno kadib waxaan u gudbi doonaa qaybtan step 2 markaan u gudubno hadda student aan joognaa student markaan joogna waxaan u gudbi karnaa practice ay leeyihiin qaybta practice haddana waxaan u gudbi karnaa qaybta oo funding-ka caadi ahayd waa 3 qayb waay qayb kasta magac gooni ayuu leeyahay FundNext magac gooni leeyahay marka insha Allah qofkii daneynay oo account-kan profit target laga rabo waa halkan waay waxa iga harsan 47 iyo bar camal inta helay oo inta iga harsan tahay inta kale waa helay marka insha Allah kan hadii addu waxa laga yaabaa calaamadda halka meesha taalo ayaa ilaa halkaas imaan doonto marka intaas waa dashboard intaas ku yaala markastana maalin kastana waxa laga rabaa trading days-kana waxa laga rabaa ilaa 5 beri trading days-na sameeyo marka 3 beri trade qaatay 2 beri kale aan rabo trade inaan qaado hadii aan ii suurtoodo hadaan trade hel waa qaadan doonaa kadib waxaan arki doonaa account sidii xaaladii noqoto marka 3 beri markay dhamaato oo hadda soo socdo kadib hadii trade kale aan helno okay hadii trade aan weynan waxa laga yaabaa inay noqoto next week inuu isku bedelo marka taasna waxaan u sameeynaa wax kale maahan inaan aragno dadka inaan tusno FundBip si uu shaqeeyo
iyo waxyaalaha funding bip cilada u weyn ee uu haysto waxa waaye markii oo trade qaadatid oo trade-kii oo profit ku wado tusaalahan profit ku wada 1% profit ku wada waxa ku talagashay inaad 2% khasartid 1% profit maadaama uu ku wado haddii stop loss-kaada uu ku dhaco oo kugu soo laabto waxa laga yaabaa koonka inay kaa xirtaan sababtay kaa xirnaa wax kale maahan waxay ku leeyihiin waxa ku dhacday daily loss-koodan waa 3% maalintii 3% macnaha daily loss-ka 5% waay laakiin one trade haddaad 3% ku khasaarisid koonka uu kaa xiran doonaa marka taas waxa waaye waxyaalaha aan isleeyahay oo cilad koowaad oo hadda aan ku dhaliili doono oo funding bip aan ku dhaliili doono ciladaas ay noqon doontaa marka ciladaha kale way iska imaan karaan qaabka payout-ka funding next waa aragnay payout-kooda waa fast waa degdeg badiyin kuwan payout-kooda way fiican yihiin hadda ma haystaan wax payout dad u diideen ama cilada ay laga sheegay payout-kooda wuu shaqeeyaa si fiican u shaqeeyaa laakiin waxa laga yaabaa akoonka inay xiraan akoon kale ay kuu soo diraan markii payout la gaaro laakiin halka fund next maanta markaa payout dalbatid isla maanta trade kala qaadan kartaa FTMon saas maahan maanta markaa payout-ka aad dalbatid akoonkii username iyo password kale ay kuu soo diraan MT5 ku gulshid ilaa laga gaarayo wax trade ma qaadan kartid marka waxaa jira waxyaalo ay ku kala duwan yihiin intaan akoon aan ka hadlayno marka akoon kasta adiga iyo jooskaada iyo saa u aragtid iyo midka as leedahay ama wax ka fahmi kartaa taas waxaan dhihi karaa adiga kugu xiran tahay marka insha Allah taas waxay noqon doontaa intaas marka waxaan isku doonaa hadii ilaahay ma akoonka xaaladiisa meesha ku dhamaatin waa idin soo gudbin doonaa marka insha Allah video maanta halkaan aan rabaa inaan ku joojiyo waxay noo balanahay video xigo haddii wax aragti iyo fikir aad ka qabtid videogan iyo qaabka oo aad aragtid waxyaalaha in lagu soo kordhiyo ama videogan aragtidaada halka hoos commentiga nala wadaag hadii ilaahay ma marka waxay noo balanahay shirkadda duulimaadka Waabay Travel oo fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho kana mid ah shirkadaha ugu adeeg wanaagsan waxay ugu bishaareynaysaa dhammaan macaamiisheeda ku kala sugan daafaha caalamka in shirkaddu ay xoojinayso tayeynta adeegyada ay u hayso bulshada adeegyada shirkadda idin haysan waxaa ka mid ah adeegyada xajka iyo umrada oo tayeysan fiiro gaar ah umrada waa full package waxaa la socda tikidyo go and bag hotelo 5 stars ah basas casri ah loogu talagalay macaamiisha inta ay ku sugan magaalooyinka Maka al-Mukarrama iyo Madiina al-Munawwara waa 15 maalmood gudahooda waana adeegyo raqiis ah oo ku raali geliya cidii doonaysana intaasi shirkadu ay uga sii kordhinaysa Waabay Travel oo xiriir la leh shirkadaha caalamiga ee duulimaadada diyaaradaha sida Qatar Airways, Ethiopian Airlines, Turkish Airlines, Emirates iyo Ocean Airlines waxay kordhinaysaa hufnaanta iyo tayeynta adeegyada macaamiisha iyadoo loogu adeegayo hab fudud oo lagu qanci karo lehna dal iyo dibadba duulimaadada gudaha waxaa ka mid ah Hargeysa, Dhuusamareeb, Garowe, Baydhabo, Kismaayo, Beledweyne, Gurceel, Caabudwaaq, Gaalkacyo iyo Doobley duulimaadada dibadda Nairobi, New Delhi, Turkey, Uganda, China, Malaysia, Pakistan, Ethiopia, Eritrea, Masar iyo Djibouti waxa sidoo kale adeegyada kamida in laga soo xajiyo lagana soo umriyo ehelada waalidiinta geeriyooday iyadoo loo diyaariyay culamaa u diin aqoon durugsan u leh adeegyada xajka iyo umrada waxa sidoo kale macaamiisha si heer sare loogu adeegi doona inta ay joogaan dhulka barakaysan sida hotelo 5 stars iyo gaadiid waxaana kugu diyaara shaqaale loo carbiyay u adeegista dadka haddaba shirkadda waxa ay xarun ku leedahay waa beri taleex Daarul Tawxiid Apartments ka soo horjeedka Xayaat Mall ama kala xiriir telefoon nambarada shaashada ku qoran mahadsanid